عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي soo dhawaada meel kasto aad dunida aad ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixinadii iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan iisoo gudbin doonaa oo aan caawa diiradda saari doonaa Willian laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea iyo dhacdooyinkii dhexmaray iyo tababaraha xalay saqdi dhexe laga ceeriyay shaqada Aston Villa ee Steven Gerrard ayaan saaxiibayaal halkan aan kula wadaagi doonaa. haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenaan fadlan subscribe noo saar leegta iyo sheertana nagu dhiirigeliya waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga. taageerayaasha kooxda kubadda cagta adduunka ayaa hadal haynta maanta ka dhigtay xidiga reer Brazil ee Willian iyo tababaraha xalay Aston Villa shaqada ka ceyrisay Steven Gerrard kaas oo hore u soo dhexmartay dhacdo taariikhda gashay haddana ay uga dhigtay in xalay ay iska hor yimaadaan oo ay halyeyga reer England shaqada laga ceyriyo. Aston Villa ayaa xalay saqdi dhexe shaacisay inay shaqada ka ceyrisay Steven Gerrard oo muddo 7 bilood ah leelinayay kooxda Aston Villa kadib markii ay kooxda u dhaadhacday kaalinta 17aad iyadoo xalayna guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda Fulham oo 3-0 ku burburisay kooxda lagu magacaabo Aston Villa. laacibka reer Brazil Willian ayaa xalay khadka dhexe uga soo bilowday Fulham oo xagaagii la soo dhaafay si xor ah ugu soo waxaana uu qayb ka qaatay shaqo ceyrinta Steven Gerrard lagu sameeyay xalay ee kooxda Aston Villa. taageerayaasha kubadda cagta ayaa sidoo kale barbar dhigay dhacdadii Cottage ee xalay ee shaqada laga ceyriyay Gerrard iyadoo ciyaartii sabtay in uu Gerrard ku fariisto kubadda cagta sanadkii 2014 oo ay kooxda Chelsea u soo ciyaarayay Willian oo 2-0 ka garaacay kooxda Liverpool kulankii ugu dambeeyay xil ciyaareedkaas. Willian ayaa dhaliyay goolkii labaad ee Chelsea ee ciyaartaas iyadoo mid ka hore uu dhaliyay laacibka lagu magacaabo kadib markii uu siibtay Gerrard oo kubadda loo soo dhiibay sidaasna laga dhaliyay goolka. Liverpool ayaa xil ciyaareedkaas u baahneed inay badiso ama barbaro gasho si ay horyaalka Premier League u guuleysato hase yeeshee la kulmeen guuldaro sababtay in kooxda Manchester City ay horyaalka ku guuleysato. labada dhacdo Steven Gerrard uu marna kaga fariistay ciyaarista kubadda cagta marna laga ceyriyay shaqada tababarnimo ayuu Willian qayb ka qaatay waxaana arrintan keentay falcelin taageerayaasha. markaa saaxiibayaal labadan ciyaaryahano oo hore ugu soo dheeli jiray kooxda Liverpool iyo Chelsea dhacdooyinkoodu waa labada dhacdo oo aan caadi ahayn. marka Steven Gerrardna sanadkii 2014 markay isla hayeen ku guuleysta horyaalka Premier League maadaama ay 30 sano ay soo arag laakiin kooxda Chelsea oo kulankii ugu dambeeyay horyaalka Premier League ee 38aad ay kula kulantay garoonka Stamford Bridge ay 2-0 ay ku direen kooxda Liverpool kaas oo kooxda Liverpool oo guuleystay horyaalka lagu magacaabo Premier League. marka saaxiibayaal dhacdadii soo dhexmartay Steven Gerrard tababaraha xalay laga ceeriyay kooxda Aston Villa iyo laacibkii reer Brazil ee Willian intaas aan ku soo gabeynaa waa mahadsantiin saaxiibayaal.